ilmaha wax la bara waxa ugu horeeya tawxiidka ilaahay in la baro baa ugu horeysa islaamka iimaanka tawxiidka ilmaha in la baro markaas wuxuu ku barbaarayaa akhlaaqda wanaagsan oo tawxiidku ugu horeeyo ayuu ku barbaarayaa markaas wuxuu yaqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu asagu abuuray inuu asagu mutaysta kaligiisa la caabudo caqiidada oo tawxiidka ah oo ilmaha lagu bilaabo waa dhaqankii islaamka weyn waa dhaqankii diinteena weyn waa dhaqankii saxaabada ee nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu barbaarayaa asagoo muwahhid ah oo ilaahay wahidaya oo sunni ah oo sunnadii ku dhagan ayuu barbaaraya wuxuu arrinkaasi u noqonayaa difaac waxyaalaha bidacda ah iyo hawa raaca iyo fitan badan ayaa ilaahay tawxiidka uu yaqaan ilaahay uga badbaadinaya Jundub ibn Abdullah wuxuu yiri nabiga la joogno annagoo dhalinyaro ah markaas nabigu wuxuu nabaray sallallahu alayhi wa sallam al-iimaan iimaanku nabaray waxa uu yahay qabla an nata'allama al-Qur'an inta aan qur'aankii baranin ka hor ayaa iimaankiina loo laqinay oo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah macaanida ay leedahay ayaa la baray markaas wuxuu thumma ta'allamna al-Qur'an qur'aankii baan baranay fazdadna bihi iimaanan markaas qur'aankii markaan baranay iimaankiina hore u baranay iimaan ayaa noo sii ziyaaday markaas wuxuu dhihi jiray idinku maantay qur'aankii baad baraysaan idinkoo alle iyo rasuul aan barin ilmihi waxa laga yaabaa ilmaha dugsiga dhiganahaya oo dhowr jus marahaya bal inta dariiq u istaagtid qaba mid kamida waxa weydiisaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaa ka taqaana rasuulka wax ka weydii haba ka yaqaan ma garanayo macallinkuna uma sheegin hooyana uma sheegin quraanka uu dhiganayaan macnihiisa ma fahansana inuu yaqaanaa way yarta aad buu yarta maxaa la rabaa markuu wax fahmi karo ugu horeeyo in la baro sidaas la doonayo Sulaym radiyallahu anha markay islaamtay markiiba wiilkeedii Anas bay waxay bilowday inay u laqeynto la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah waxayna ku oranaysay qul ashhadu anna muhammadar rasuulullah nabi muhammad waa rasuulka ilaahay qir oo dheh tawxiid bay ku barbaaris markaas zawjkeedii wuxuu oranahay abu abiis baa wuxuu oranahay wiilka ha iga fasaadin markaas ay oranaysay ma fasaadinaya waa islaaxinaya ma fasaadin Ali ibn al-Husayn ilmihiisa waxa ugu horeeyo oo bari jiray wuxuu ahaa inuu yiraahdo qul aamantu billah wa kafartu bit-taaghut waxa tiraada ilaahay baan rumeeyay taaghut koodana waa ku gaaloobay oo been waa macnihi la ilaaha illa allah ay xambaarsanay Ibrahim Mutaymi wuxuu dhihi jiray kaanu yastahibbun saxaabadu waxay jeclaayeen ilmaha waxa ugu hore oo ku dhawaaqo inuu ahaado kelimada ah la ilaha illa allah fayakunu dhalika awwala ma yatakallamu bih arrinkaasi soo u noqdo waxa ugu horeeya oo ilmaha yarka uu ku hadlay maalin baa waxaan arkay hooyo cunug haysa oo ugu celcelinaysa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah way karsiine markuu ku dhawaaqo oo laba jeer saddex jeer si sax ugu dhawaaqo bay tiraa ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah waan weydiiyay meequu jira baa ina 5 sano ma gaarin waxba uga dhimo 5 sano ma uunan gaarin waxba uga dhimo markaas waxay u laqinaysaa oo baraysaa oo xifdisiinaysaa hadal bilowga markuu noqdayba inuu kelimadan iyada aqab u fiirso ilaahay subhanahu wa ta'ala
وأجدا هو يدعس كلمة دا أي أقول لقينيسو إنيسان استوسس يهلقا شيئا كأهين أي ربطه إنه عنقاني وناقي إصلاح أي حالة دي سيئة نلوشيسو أي كوب باللعبط وقلبي جيسا كلمة دا أي دكتو إلهي وأقبل يا مركز وحو قلنا قنا يا إلهي إذن كيسا عنق وناكسن والصلاح كبر باره وكلمة داس وحويان وحا أي حنبار سنتهي كرهشان إلا نقف كان هو يدو المهد من مجاملين يسو إخلاص يضاعت نما أي كلمة دا أبريسا وأقول لقينا يسا وأقول العلنيس وأنا المها أنت عليك وصغير كا معلنك الدكسية دقاه أي أقف في عنتها مركز اللي أقول وأي وايرتها إلما أنت أسلاق معلنه كلمة دا أقول لقينا أدو يرت تلابوين كمهم كا أو قالقة أو واجب كوينغا ساريا وحويان إنه إلمها كبد بادنه أو كعلالنه وحيالها ما تجره أو وحويان تلفزيون ندى قريها الله دقي يدشك الله حري انترنت يدا موبايل هذا وحلو الشبه أيو أفلام تلفير سنة أيو وحيالها ما تقانا ما أنت ميلو البيالة إنه كانت على إلما أو وح أقول ريا أويا هاي دشك أنت قريها الله صاري تلفزيون كيلمي وحول بكفير سنة أيام وح الله وحي الله صار دقي أو خير يا قرآن أها ومسكحدي سو أي كف كري لهاي مركو الله بتشر بحال كان الله داره أو الله بفيلن يصدق فيلن وكفير صده بين مصحميان وح الله وحي الله صار الله بعد مركز وحي عادة كدقنا يا المهاس أو كبر باريا مركو بحال كان وتشيدنا وفرح سيهاي وحوها يا ددال يا جهدي بوها يا ساعدها كله ما هي مفهم سنة هدي اللي يا قرآن كآدنه وهم ولا داعي ساسوس كده وريجي كبتي بقى مقن بوك بقى قال له مي هو يمد دقائق كرو معناه ساعات إنه دلاك بقى هيا بريء أدوق إكحة بس كده وريجي ساعة هدي وسيج ترى نق ودارنا يا بل المه واحد يكون تخصصين بيال بدن الله تشعل إن المه كذا وضع قيبته وعدك يا محاضرات يا إنتي كفير صدام ساعة وجوك هنا أو مركه النيد والأكسن أيا المه إنتي كبضيان واحد يكون تخصصين مركو يريد كسر قاله إن قرآن لصاره شيخ وين أو وعدنا ينا لصاره أو مركو صار قال تأفر شيء علمي وفير سنة ويا ما شاء الله ما شاء الله هنوسيه ساعة قول كيس مركو قال ولا بدله دك خلال صاره وين برتين المه تخصص وهي قاعدة هذا كين يقول لي قبل محابة وكين سامركو هاري ولذلك أهل علمك waxay ka hadleen oo fatwo ka soo saareen bahalkan fasaadkiisu ka badan yahay islaaxiisa iyo khayrkiisa iyo fasaadkiisu uu badan yahay guriyaha in la dhiga inay muharram tahay waxayna ahlu cilmigu cadeeyeen qofkaasi inuu soo galayo xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabigu yiri ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah qof dhintaa ma jira markuu dhimanahayo asagoo dadkii uu mas'uulka ka ahaa khiyaanay illa ilaahay jannadu ka xarima markaasay waxay yiraahdaan min al-khiyanati al-'azima idkhalu hadhihi al-ajhizati ala buyuti waxa kamida khiyaanada weyn oo ilmihiisa khiyaanay oo uu dayacay waxa kamida jihaaskan iyo qalabkan uu guriga u dhigay oo waxa weeyaan ay ku mashquulinayo oo qofkii وحلا وحي أخلاق دكسية الله قد يقصي كبدلين وحو مساجد كبرتنا أسرع كتير هاي وحلا وحى حن أردنا وكيلاي وفيرسو وكيلاي مركب وخطر عادي مركب نفط هذا أو نح وحلو ما مرسيو هذا درس وكسر في سنة يهدا ودي ده أنا ما استاجه هاي وحن مدينا هاي ويا عيال ما تدرس يصير في سنة هذا أدو قولي كم ممنوع ودرس كأول نقطة عادي الدم بمليت إلهي أكتي سوا بتبادس وهي جهاز كان باطل كحرامته وما ذكين هادو درسك كاغا دونتو يا هادو ميل كلا او دونتو او كسو فيرسدو horta naftaada adigu badbaadi waxaad ka badbaadisaa qabriga marka lagu dhigo in lagu weydiiyo lagu yaa raciyadii lagu dhiibo waad khiyaanta waxaad ku khiyaanta adaa fasaadiyay jawaab loo ma helis
wixii uu la qarsado iyo wuxuu meel kale la aado waxa weeyaan adiga amaam Allah kuma saarna laakiin tarabiyadoodii gacan ku hayntooda laga rabo qodobka kale oo muhiimka ah waxa weeye oo in badan inaga maqan ilmaha in la baro sadaqada iyo ihsaanka dariska in loo sameeyo oo sadaqada la bixiyo in la baro nin ayaan arkay maalin muddo laga joogo 25 sano masaajidka Sheekh Cali Suufi baa ku wada tukan ilmo yar yar oo dhalay baa la socdo dadkii markay baxayeen buu banaanka istaagay ilmihii baa intii waxay ku yiraahdeen aaba nasiil lacaga sadaqaysano aaba nasiil lacaga sadaqaysano aaba nasiil lacagu soo bixiyo Soomaali ah kanuu dhiibay intay kala yaaceen oo kala ordeen baa masaakiin meelaha taagtaagan ba mid walba ku dhajiya oo siiya ayagoo faraxsan ayay aabahood dhinacyada ka soo raaceen waan weydiiyay wuxuu igu yiri waxaan baray jumcada inaan israacno haddaan israacno masaakiinta in wax la siiyay barteen marka wuxuu yiri marba haddii la kaxeeyo oo jumcada ay tahay waxay fiirinayaan wax ay sadaqaystaan tarbiyadaas u bar ilmaha haddii la baro sadaqada mar alla markuu arka maskiin baahan uu daqnanaya wuxuu xasuusanayaa tarbiyadii aabe iyo dadaarankii aabe iyo naxariistii aabe masaakiinta u hayay mar alla markuu xasuusto oo u daqnado ayuu wuxuu isku dayayaa inuu aabe wax ka helo oo uu siiyo hooyo inuu wax ka helo oo uu siiyo ayuu isku dayayaa waa inaynu barnaa ilmaha sadaqada oo aan iraana aabe maanta maxaa sadaqaysatay masaakiinta dariskeena maxaa siisay miskiinkii dariiqa marahayay masaajidka haddaad tagto masaakiin ma ku soo aragtay maxaa siisay hadda ka waran haye bari marka ay soo raacnay xasuusi aan ku siiyo lacag sadaqaysatid waa tarbiya aad iyo aad u wanaagsan akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan wuxuu ku tarbiyoobayaa dhaqankaas maalin baa waxaan soo galnay masjid Quba maqribkii oo soo dhow markaas dad baa soo mana waa la soo mana markaas waxa goglan intaas oo kale raashin baa yaala wiilal yar yar oo aan qaangaar ahayn ayaa irdaha laga soo galaya taagan markaas ay dadka soo dhaweeyaan tafaddalu macna bilay oo ka xaynaya meeshii aabihiis fadhiyo sadaqada la fadhiyay ayuu ku fariisinayaa markuu ku fariisiyo uu tagaya mid kale uu raadinaya tarabiya iyo dhaqan buu leeyahay u fiirso mana qaangaaro anagana waxa laga yaabaa inaan qofna isku wadayin intuu masaakiin wax u sameeyo inuu yiraahdo ilmaha qof soo qabtay laba soo qabto maalin la weyto ayaa laba nin waxay mareen meeshaas lambar 4 laga bilaabo ilaa dabka xaqiisa jidka lugeynahay duhurkii baa la gaaray masjid lagu tukadaa la waayay jidka labada dhinac oo zaxmada ah hal masjid ma leh laga bilaabo lambar 4 ilaa hore u soco sayidka meelahaas la gaaray waa filaya taqriiban hal masjid baa ku yaala ma garanay haddii salaadii la gaaray wax masjidana aan lagu arag baa labadii nin sheekaysteen nin kamid ah wuxuu yiri niyow dhageyso guryahan fiyaalaha ku yaala oo labada dhinac waxa weeyaan guryaha magaalada xamar ugu qaalisan way dhulkaan meesha ugu qaalisan bay ku yaalaan aabayaalkii iska lahaa waxba kama noola haddii mid nool yahay ama laba ay nool yihiinna aqli ma leh waayo dhulkaan markii la bixiyay oo aabayaalkaas ay yeesheen waqti hore ahayd macruuf weey fiyaalahaas odayaashii lahaa waxba kama noola hadday ka nool yihiinna mid sirqaaho sariir saaran baa ka dambeeya maxaa loo heli waayay intaas oo guri oo fiyaalaha ku yaala ilmihii ayagu ay dhaleen hal mid oo baari ah oo yiraahdo dhulka qaaliga ah oo fiyaalaha ah oo haddii masjid laga dhiso meel la istaaga aan la arkahayn ayaan aabahay u waqfay maxaa lagu waayay hal mid ilaa guriyihii waa la dhaxlay ilmihii dhaxladay baa jooga oo dhooban oo ijaar ka qaadanayo degan hal mid oo yiraahdo booskaas aabe aan u deyn oo aan u waqfno maxaa looga waayay markaasuu kii kale wuxuu yiri markii hore baan lagu tarbiyay ma lagu tarbiyay inay sadaqadaas la baxaan oo sidaas ay noqdaan ma lagu tarbiyay
caawa hadduu hayo aabbahaasi taladiisa ay ahaan lahayd oo qabrigu ku jira taladiisa ay ahaan lahayd waa hormarsan lahaa soo wajeed waxaas fiyaalo ku yaala ilmaha degan dad baa iska le maantay oo ayagu dhaxlay aabiyaalkood ka dhaxlay nin duminahayo ka dhisahaya masjid ama madrasa ka sameynayaan ma jiro maxay arrintaa ku baraysaa marka waxa ay ku baraysaa haddaa fiyaalo leedahay iyo haddaa meel fiican leedahay iyo haddaa hanti leedahay adigu naftaada ku tasho ayagana sadaqada iyo khayrka bar adiguna waxaaga waxa weeyaan wixii aad hormarisan kartid hormarso taasay ku baraysaa qodobka ugu dambeeya muhiimka waxa weeye ilmaha in loo duceeyo oo aan la habaarin iska daa ilmaha in la habaaree xayawaanka in la habaaraan la ogolayn nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabada axad ka mid ah gaadiid uu fuulahayey ayaa sidii rabay noqon waayey markaasuu lacnaday lacnad ha kugu dhacday markaasaa nabigu u yidhi aawo ninkii lacnaday siyo waa aniga markaasuu yidhi ka deg daabaddan ka deg daabad malcuunad ah oo lacnadan nala saaxiibi mayso oo safarkan raaci mayso iska reeb markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada intuu la hadlay laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum carruurtiinna ha habaarinina walaa tadcuu calaa amwaalikum hantida aad leedihiin iyo maalkiinnana ha habaarinina laa tuwaafiquu min allaahi saaca iska ilaaliya inaad waafaqdaan saacad ilaahay xaggiisa ka ahaatay yus'alu fiiha cataa ilaahay wax lagu su'aalanaya saacaddaa dhexdeeda oo fayastajiibu lakum ilaahay markaa idinka ajiibo saacatulijaaba inaad waafaqdaan oo habaarkii aad habaarteen iyo saacaddii aqbalku iswaafaqaan iska ilaaliya oo markaa inta la ajiibo ilmihii damaarmaan oo baaba'aan oo ay noqdaan waxaan khayr iyo barako lahayn oo ay noqdaan masaa'ib daba joogta ay ku dhacdo maalkii waxa weeyaan baaba'o halaagsamo adigii naftaadii dhibaata ay ku soo gaarto nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya u duceeya ilmaha hooyooyinka inta badan ayagaa in mar kasta ilmaha la nool oo la jooga oo mar kasta xanaaqa kelimaad bay isticmaalaan kelimaadkooduna waxay u badan yihiin habaar bay u badan yihiin waa in hooyada aad u sheegtaa xaaskaaga aad bartaa arrintan khatarta ay leedahay iyo nebigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad bartaa oo ku baraarujisaa oo ay lisaankeedu uu bartaa kelimad kale oo duco ah kelimad kale oo duco ah waa in halaha afkeedu uu qabtaa markay xanaaqdo adiguna iska ilaalisaa u soo kac ilmaha islaaxooda iyo wanaagooda ilaahay subxaanahu wa tacaala u bari ana uleylka u soo kac ilaahay inuu ku islaaxiyo ku hagaajiyo sadaqa bixi ilaahay awlaadaada inuu kuugu barakeeyo kuugu hagaajiyo waalidkii ku dhalay ilmaha ka ducaysta dheh oo awowo u taga ayeeyo u taga habaryar u taga qaraabadii soo salaama dheh oo ilmo waalidku u duceeyo weyni oo awowayaal iyo ayeeyo u duceeyaan ilmuhu inay noqdaan ku didaan qaraabada iyo riximka bar qaraabada iyo riximkaa soo dhoweeyeen qaraabadu ha u ducayso khayrka ilmaha kula didaan salaaxooda iyo wanaagoodu ilaahay subxaanahu wa tacaala baa maamulo oo xukuma adiga waxaa lagu dira shaqadan inaad la timaadid qofkii la yimaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmihiisa waa u barakaynaya